walaal dad baan sidaa iga raaliyaha walaalo buuxa walaale daawadayaal magaalada Hargeysa waxaanu kula kulanay haweeneydii ugu horeysay inta taariikhda loo ogyahay taksiila ka dhex noqotay magaalada Hargeysa waa Samsam Xasan Aadan oo hadda aan wada joogno Samsam bal goorma shaqadan bilowda walaali maka alxamdulillaah rabbil caalamiin muddo 2 bilood ayaan wada shaqadan ka waran shaqadan balse say kula muuqata wallahi shaqadan aniga aad bay ila fiican tahay waayo mujtamaca inta faraha badan leh ee gidaarada fadhida qofka ibn aadanka waxa wanaagsan inuu fikir keeno marka fikirkan aniga qaatay aad baanan aan maxaan ku leeyahay alxamdulillaah rabbil caalamiin wax iga soo galaan marka Samsam magaalada Hargeysa gudaheedu mad ka shaqeysaa mise meelo kale wada bax kartaa wallahi walaal magaalada Hargeysa dhexdeeda aad baan uga shaqeeyaa مثلاً مركان كره هلنا وجعله وانو بحا بورما وانو بحا لبضب وان تجا. waxaan ku weydiiyay marka tusaale ahaan oo kale laga hadlayo arinkan tagaasidu inta badan rag baa wata marka dareen intee leeg bay ku galisaa yaani ma ku faraxsan tahay inaad wado waxa soo raga wax la qaybsato والله aad baan ugu faraxsanahay inkastoo matalan tagaasida oo kale ama basaska oo kale dhalinyaro aad u yaryar ay wado oo matalan markay arkaan ama qaylo ama waxyaalo aad u cay aflagaadaan kala kulmo haddana inta badan way hambalyeeyaan maxaa ku kalifay inaad shaqadan qabato والله waxay igu kalifay walaal qofka dumar ha ahaado ama rag ha ahaadee uma fiicna fadhigo caruur yar baan haystaa anigoo militariga ah oo laba xarig la militariga ah qaybta fanka ayaan u xisaabsanahay oo fanaanad baa taa fanaanad baana saalaan xagga markay noqoto macaamiisha lacagta raggu markay ku joojiyaan ama dumarku markay ku joojiyaan markay arkaan inaad haween tahay miyaa lagu la gorgortamaa sida tagaasida kale se markiiba waxaad codsataba lagu siiyaa maya kolley waa ibn aadan in xuniyay oo ila gorgortanta iyo in wanaagsan oo ii hurtay labadaba way leeyihiin imsaad soo kacdaa subaxdii kale subaxdii waxaan kacaa adigu marka la eedaamayo 5 ayaan kacaa inta gurigan yare hagaajistaa laakiin guriga waxaan ka baxaa 6 ayaan ka baxaa marka goormaad hooyataa soo habeenkii oo kale ma shaqeysaa maya habeenkii ma shaqeeyo waxaan hooydaa matalan adigu ilaa iyo 5 iyo barka ama ilaa iyo 7 marka kalsoonida aad ka qabto tusaalahan waxa jira kale oo kale dad tuugo oo kale ku kareysan karo ku arki kara inaad haweeney tahay oo inta gaariga kareystaan dabatana waxyaabo kale laga yaabo inay ka yimaadaan dadkaas oo kale sidoo aamintaan wallahi walaal horta tala waa calool adayg haddii uusan qofku calool adayg lahayn waxba ma hagaajisan karo waxa weeyaan markaan ibn aadanka saawiga kulay qofka xun iyo qofka fiican wajigiisa kala garanaysaa mar haddii aan duhur joogana wax cabsi hooy gashaa ma jirto wax dhiiranaan mooyaane ka waran markaa bal shaqalaan baa la sheegaa dhalinyaradu shaqalaan bay ka cawdaan dadka reer Soomaaliland shaqalaan bay ka cawdaan aduguna shaqa aad u adag oo waliba dumar ka horreeyaan ku jireen ayaad maanta ku talaabsatay marka ma waxaad u aragtaa shaqalaanta ama shaqada ka jirta Soomaaliland wallahi waxaan u arkaa inaanay shaqo la'aan jirin nin walba wixii uu fikirkiisa ka keeno uu qabsan karo wax shaqo la'aan oo Soomaaliland jirta ma jirto waayo waxaynu haysanaa wadan nabada waxaynu haysanaa wadan hodana inta laxaad ka qabta meelaha meeraysanaysa waxaan ku waaninayaa wixii qofku fikirkiisa ku keeno in laga dhargi karo ayaan anigu qabaa hablaha iyo haweenka kale ee shaqadan u hamuun qaba ama laga yaabo inay jeclaan lahaayeen inay galaan miyaad kula talinaysaa waad ku dhiirigelinaysaa inay shaqadan galaan wallahi aad baan ugu dhiirinayaa waxaan codsanayaa waliba dhalinyarta gawaarida yaryar wada inay hablaha soo dhaweeyaan habluhu waa hooyo waa walaal lagama maarmi karo in waxaan jecelahay inay soo dhaweeyaan oo si fiican u soo dhaweeyaan hablahana waxaan ku dhiirinayaa intaynan meeraysan lahayd in ay fikir keento ayama ku shaqaysato nooc u doonaba ha noqdee saxmadda ka waran saxmadda suuqa Hargeysa aad bay u badan tahay marka dhibaatooyin ma kala kulantaa taawaan kala kulmaa oo waayo waxa jira qof ciyaal suuqaan maskaxdiisa ku filnayn ama gaari weyn ha wado ama gaari yar ha wado qaar baa gawaarida iyo hordhiga qaar baa igu soo weeciya waxa dan kama galo waayo shaqadayda iiga weyn